maanta waxaa magaalada Godaale la dhagax dhigay dugsiga sare ee Godaale oo ay mashruucaasi qayb iskaga qaadanayeen ururka maxalliga ah ee Testo iyo hay'adda ERC waxaana halkaasi ka soo qayb galay dadweyne aad u sara badan iyo isimo dhagax dhigaasi oo maanta ugu horeyntiiba uu khudbad ka soo jeediyay garaad Cabdisalaan garaadka beesha inuu afar sanad ka siiyo magaalada sida odayaasha ay og yihiin madayaasha magaalada oo dhan aragtaan dhulka waa bixinay ana bixiyay dhulkaas hadii la haydmo waxa intii ka dhimanna waxa weeye oo kale oo laga dhimanna waa marka maartay aynu u diyaar garoonayno dhamaysan karnaa waxaan rabaa magaaladan sideedaba biyaha iyo waxbarashada iyo nabadgelyada iyo caafimaadka inaynu ku dadaalno inta haddaynu ku dadaalno degmadu way horumaraysaa dad fiican baa magaalada degan laakiin mararka qaarkood waxa dhacda waxyaalo yar yar oo maaragtay dhulalka iyo waxaas dawlad la'aanta ay keenayso oo dhulka in ama lagu habsado ama dhulka dadku isku qabsadaan taana waynu xallin doonaa haddii Ilaahay idmo Ilaahayna waxaan ka baryayaa inaynu nabadgelyo ku waarno Ilaahay waxaan ku baryaynaa in iskuulkaasi inoo hirgalo Ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa ka soo baxay dugsiga sare ee Godaalo oo madaxa inaynu aragno oo xukumaya oo aynu idhaahno iskuulka hadda inaynu dhagax dhigano baan ka soo baxay dugsiga sare ee Godaalan ka soo baxay mid leh in la arko Ilaahay saasaan ka baryaynaa قدامي صعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا والسلام يا دمان أنت كسر قيب الشيء مدشن تاريخي جاه حمانت فرحات نوعه إنه الناي باس كي دوسية صار لقى دي سيلها إنه رايح دقينا الراعي رنتي مشروع عصاها مشروع إن بدن إنه كامل إنه ينهر جله حتى نقول ونكسن يبيلو ونكسن إنه كتشوجنا dhaqaale ururintii dadka deegaanka hadaynu nahayna aynu ku jirnay oo muddada dhaqaale ururintii aynu ku jirnay haddana fursad inoo tahay inaynu booskii oo runtii boos waafiya oo garaadku inoo ku deeqay inaynu helno oo aynu kulligan maqaanti ka noqono farxad bay noo tahay waxaan rajaynaynaa waa bilow wanaagsan mashruuceena insha Allah inuu inoo bilaaban doono si wanaagsan inoo ku bilaaban doono dhaqsaan u rajaynaynaa insha Allah hawshaasi inay inoo ku dhacdo ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha Allah inta inoo dhiman ilaahay inuu inoo fududeeyo sidoo intii hore ilaahay inuu ku fududeeyay dhammaanteena insha Allah inaynu ka wada qayb qaadano ka deegaan ahaan iyo qolada kale ee sharafta badan ee runtiina kala qayb qaadanaysaba aad baad u mahadsantiin dhamaantiin waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha صعب bismillaahir rahmaanir rahiim labta waxa halkan aynu isugu nimid dhagax dhiga dugsiga sare ee Godaalo kaasoo mashruuciisa ay wadeen oo iska kaashanayeen ururka Testo iyo hay'adda ERC oo dhaqaale ururintiisu ay socotay in muddo intii sanadkan 2020 bishii sanadfaad ilaa bishii koowaad insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu mashruucaasi si wanaagsan oo midho dhal leh ugu dhamaado dhulkiina uu wanaagsanaa oo waxaan ugu deeqay garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed Ilaahay khayr ha siiyo bulshadeena reer Godaalo dhammaanteen waxa laynooga baahan yahay inaynu gacmaha isqabsano inaynu wax qabsano in waxa weeye aynu wax la nimaadno waxna la inoogu daro sida iskuulka oo kale insha Allah ta'ala in nabadgelyada lagu dadaalo in danta guud laga shaqeeyo in waxa weeye gacmaha la isqabsado oo la noqdo dad walaalaha oo mar walba isku tiirsan oo waxa weeye danta guud ka shaqeynaya insha Allah ta'ala mashruucani waa inoo bilowday wuxuuna inoogu dhamaanayaa sidii khayr leh insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxqabadka Testo kuma eka kaliya dhismaha iskuulada waxay wax ka qabtaan qaybaha caafimaadka iskuulada dugsiyada waraabinta biyaha xoolaha iyo dadka ooman iyo afuri walaalka ururka Testo ayaa ah urur qayb libax ka qaata arrimaha bulshada ee deegaanadan hay'adda nugaal sida Godaale higlacaanood iyo inta ku heeranba Testo waa urur isaga kaliya iskii isku xilqaamay bulshadaasna wax